waxaa maanta magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ka dhacay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia lagana soo horjeedo maamulka Somaliland. banaanbaxan ayaa ka dhacay fagaaraha hore ee dugsiga hoose dhexe ee Daraawiish ee magaalada Buuhoodle halkaas oo ay isugu soo baxeen boqolaal dadweyne ah isla markaasna watay halkudhigyo ay ku qoran yihiin midnimada Soomaaliya waa maqadis iyo halkudhigyo ay ku taageerayaan maamulka cusub ee boqolaalkan dibadbaxayaasha ayaa dareenkooda ku muujinayay taageerada lixaad kale oo hayaan maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia ee dhawaan lagaga dhawaaqay degmada taariikhiga ah ee Taleex iyo waliba midnimada Soomaaliyeed. sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah madaxda maamulka Khaatume State of Somalia kuna dheeraaday inay midnimada Soomaaliya muqadis tahay isla markaasna ay ka go'an tahay dadka shacabka ku dhaqan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. الله تحاكم سماع لماذا هاتيكم وقالنا وبشارة وانيدكم بشارين خاطبوا وأمام الخميرة فدرالك صوماليا صوبحا بلارن aad ku taageereysaan Khaatume State iyo Soomaaliya midnimadeeda aad ku taageereysaan iyo shirka London ee Soomaalida loogu qabtay heshiisiinta Soomaaliya aad ku taageereysaan aad baan ugu mahadnaqaynaa. marka labaad anaga fikirkayagu waxa weeye inaanu taageerno shirka London iyo midnimada Soomaaliya iyo midnimada Khaatume State iyo jiritaankeeda. maanta waxaynu taagannahay Buuhoodle waxaynu u banaanbaxaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa yidhi waa kala goynaynaa ee beenta ku sheegaya ee riwaayadda isku maamulaya. waxaan codsanaynaa inaanay Soomaaliya ka gooy karin inaanay kala gooy karin in kala goyni karana aanu jirin aanan ogolayn Soomaali weyna aanay ogolayn. Khaatumo ha noolaato ha guulaysato Soomaaliya ha israacdo. boqolaalkan dadweynaha maanta isugu soo baxay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ayaa banaanbaxooda ku aadanaa taageerada lixaad kale oo hayaan maamulka cusub ee Khaatume State of Somalia. sidoo kale waxay ku taageerayeen midnimada Soomaaliyeed inay tahay muqaddas isla markaasna aysan la kala googoyn karin. waxayna socdaal dheer oo lagu ku soo wada mareen xaafadaha iyo wadooyinka ay ka kooban tahay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn. Najiib Cabdiweli Cabdixiis, telefishinka caalamiga Universal TV, Buuhoodle.